مدحنا أمريكا يجوا هاي بعدين المجرسيا كرتي عبد الله محاول جواب سؤال محاول جوابي هرتا runtii Trump wadankan aad u badbaadiyay annaga markii Soomaali ahaan dhaho Trump ama fakiyo hadho ama Soomaali basaan hadho waxa waaye ninku xiiraya ya waa dimuqraatiga dhibaato waxaan lagu sameeyay waa dimuqraatiga ma ogolin annaga ya Republican banay ma ogolin annaga laba nin oo meel lagu wada xiray ma ogolin oo wax daran sameynaya laba naagood oo meel lagu xiro wax daran lagu sameynay ciyaal la dhal rugay annaga waxaan ogolnay straight in loo socdo oo la shaqeysto annaga hadaan Republicanka hal shaqeysto America will be great again barabna annaga in la shaqeysto la xoogsado laakiin marna annaga waxyaalaha wato xisbiga kan mana ogolin mana ku raacsanin waxaan ogolahay oo taageersanahay Donald Trump iyo programkiisa taageersana dhinaca akhlaaqda iyo qiyamka dadku ka hadlay xisbiga dimuqraadiga ayaga oo ololayo in waxyaabahaas faashaxuna uu ka hadlay Abdullahi hadda ay ololayaan arintaas ma ku taageersanta والله أنت تذكرت إني فهمان واي حزبك ديمقراطية صدق جروب وكل توم واي تدير أو واحد جرا متقارن لقي أو إن أي شيء كاركو لو كل توم هاي هذا سنتريست هو كلا أنا هذا سنتريست أنا هاي moral value أو دن يوحول با ومثلا هاي رنتي وحياة بدنا تذكر إسلام كأما أنا سجس من هاي لكن issue واجد عند ير أو متقارن لقي أو إن issue ده يتجسين لكن من الأوران كده عشان الماء مركز لقى وحيابها وكهذا مثلا الرؤية عيالك إيو المهل إسكسو حاقة إيو بورشنك أرنتا إيو لبضن إيو لبضن ناق إيو حيابها نوعاس أو كهذا ما دي كرتد وضدير ما يرى ودتك لقالها في عن هذا ودتك وقبض عضايا مقالوين لما رقم إيو هذا مينيابوليس أو كلا القصة بدنا كاليفورنيا وأوكتا ولا سعوتا إن وحول بس كمان تري كرنو وهرنتو إسو شاقنو وخلاق حمداس أي فافريان سو وحن معه طبعا الشيء بدن وجده سيدا شيء طبعا dadkan anaga hadda islaamka oo kale de qof ku qasbay ma jiro qof walba oo wadanka yimi diintiisa dhaqankiisa way sanaya cid adiga ka xalaysa ma jirto dadka iyaguna waxa ay suubinayaan oo kale laakiin wuxuu ku yiri dad badan iyo biyo badan ba way ku qaadaan the majority of America ما أمثلها وضد moral value وضد religion وضد أخلاق ضد أمريكا majority ضد few people أمثلنا ده وكهذا عبد الله عذنا وكهذا أخلاق إن هذا وظاهرة صوب بحضي أو بنان كتالو هذا لكن محمد majority أمريكا ما majority أمريكا LBGC abortion ما أمثلنا وضد value له وضد دين له وضد ما تقارن إيش family value ما يحيي وحكوا الحزب الديمقراطي قاعد أنت أول حزبي الديمقراطي ريبوبليكان لفت واحد جدد أمس معه حزبي أوكي خلنا مسمى جرا كم إحنا حزبي هذا ما توصل ده الناس كان سكسي مالك هذا مجرد خلنا بدنا بقى مثلا والسكول حلو من يا سبحان أنا واحد جرا كل شيء والله كي بي بي سي محمود وكهالله حكى دقالها أيوة كهالله ماشي أنو يروى السكول حلو منها يعني أو ضد كان ويسكول احترانه ريبوبليكان لفت الكيسة كواس اللي تاكب وحقوق كلها يعني وحبا كتير وحو شيء يا ملاي ارتورا كل شيء ماشي التنورت ودن opportunity له بالجوجا فريدم بنايسنا خوف والبا بسيدو ربو رقميا لكن موستلي فريدم حا مسلمين بالهاي موستلي انت بدن مارتي ديمقراطي انت بدن وحو سو بندغايا waxyaalo oo anaga aan nacabnahay islaan hadana aad aan nacabnahay oo nijaasa u sabnay laakiin xisbiga Republicanka waxa soo dhan uu daboolaya la isku dhaxjir laakiin waa daboolayin laakiin way jirtaa shaqaysaab lagu leeyahay shaqaab lagu diraya wax qabad baa lagu diraya wax wanaagsan baa lagu sheegaya wixii wax hoos ka qarsanaya oo hoos sotomarina dhaawi jirta sotomarina wixii sameynaya laakiin inta mowqifkooda baxa waxa waaye aan wada shaqaysan isbedel aan kan yarinta kamal haas gartay arintaas waa fahmay laakiin xisb meeshan hadda gobolka Minnesota aan joogno BBC wuxuu ku sheegay ku yiri waxa jirta intaasoo aqalka sare aqalka hoose city council mayor
waxaasoo dhan waa wada dimuqraadi oo dadkii dimuqraadiga noloshaadana way ogol yihiin وانا حزب اللي ودليه waana xisbi la wada leeyahay oo qof walba ku jiro dadkii dhan ku wada jiraan boos laakiin dadka republicaanka dhinacooda ka shaqeeya oo ka joogay oo halkaas joogay مثلا ilaa maalinkan soo degnay Mareykan 30 sano ilaa maanta ku jira republicaanka turjumaan bay dhaafi laayihiin meeshaan aqalgada ugu sareeyaa la joogaa maxaa ilaa heer congress bal joogaa maxaa isu indhatiraysa iyo county iyo city kursi ayna ku jirin ma jirto ana ma yahan mar qof marka wax ku ogol buu ku leeyahay soo u doodayo oo inaan la mid noqoto ogol iyo mid neefta sankaaga ka baxaysa nacab inaan noolaataba nacab indhalaan baa wax la simi karaa wallahi waxa ku jawaabaysaa waxaan ugu jawaabayaa wallahi waxa la ii qabanayo ama meeqaamka la ii gaarsiinayo waxa la iga goynayo dambe baa ka daran maxaa wax laga goynayo dambe waxa la iga goynaa jeelkayga la baabi'inayo si baabay waa dabargoynaya ilmahayga iyo ciyaalkayga baa meel xun lagu shubaya marka ma kuwa laba nin hal isguursadada ha waxaas ku shubaya cunugii yaraa soo kacay adiga shaati okay waa ku fahmay wuxuu ku leeyahay dadkan waxayna u ololeynayaan geedaha inaysan dabar go'in xoolaha inaysan dabar go'in dadkii inuu dabar go'an waa ololeynayaan ma aqligeena la rogay maxaa si dabcan waa dhageysanaya anigu waxaan qabaa dadka inta badan Mareykanka oo xisbiga dimuqraadiga ah majority-goodu runtii wadada aaminsan dadka horta xisbiga inuu leeyahay sheegtay siyaasadda waxa laga yaabaa caawa adoo his question is very specific as a Republican مثلا supporter what he's asking you is people are advocating for trees to not become extinct animals to not become extinct on the other hand people are becoming extinct on their policy and the way they want as he's saying ma saxa marka in xoolihiina la xoola dhamaanayo oo dabar go'ayo halay joojiyo dadkiina la dholaban hay iskursadaan si dadkii u dabar go'o aqligaas fooraro horta waxa laga hadlayaa waxa waa ishay maaha wax majority ah waxaan filay Cabdi wuxuu ka hadlayaa waa dad few people qofna America horta waa xor oo macnaha ishay dimuqraadiyada siinaysa marka laakiin anaga shaatiga adiga lagu gelinayo Maxamuud adiga shaatiga lagu gelinayo iyo doorashada ka galaysid iyo boosashka adiga kicisid oo aad meeqaan sare aad gaartay واسر معنا واسر واي والو سرaya waxa way miiqaamkii yareerka jeelkii yareerka soo kacay bari wada xun bay qaadayaan marka adiga waa dhamaanaysa marka laakiin republicanku wuxuu ku leeyahay war aan shaqeysano wada shaqeysano maya war serious wada ahaan xisbiga laftigiisa dimuqraadiga waxa sheegaysid madiidana horta in wax la fahmaa fiican xisbiga waxaan kuwa kala duwan yahay progressive baa jira liberal baa jira centrist baa jira dimuqraadiga ranka laftigiisa sidoo kale waa ilaa dhowr qaybood kala duwan waaye laakiin isku sad waxa laga hadlayaa dadka minority-ga oo sagalotiga xisbiyeedan u ah aniga dadka waxaan ka dhex arkaa xisbigan dimuqraadiga waan ka mid ahay madaxweyne bari noqon karaa wuxuu ku leeyahay dadka soo galaya soo galootiga hadda ay sheegaysid ay u doodaysid haddii caruurtooda la fasahaadin doono hal cisho may waxa ku xiran tahay value family qofka waxa laga rabaa isaga parentinga ilmihiisa dhaqankiisa diintiisa inuu kala fiiro wadankan waxa lagu leeyahay adigoo marka baasaboorka qof diintiisa wadka lagu xadgudbo waa masaajidda wadalana qof walba kala sidiisu aada wadanka Mareykanka family value waa number 1 waxa lagu leeyahay qofku waa inuu keep gareeyo dhaqankiisa iyo diintiisa iyo meesha uu ka yimid iskuulada la soo galo ma fiiri iskuulada ma iskuulada ma iskuuladii baa la iska bedelayo wadadii baa lagu bedelayaa ma garatay manhajka waxaan yarka lagu daadinayo sidii digaagii oo kor baa u kacday xisbigaana fiican oo kor ku qaadayo kan kama kacaysid kan waxa waa serious waxaad la imaato waa lagu siinaa waxay ku xiran tahay horta barnaamij ilaa waxa adiga la timaado miiska ku saareen hadda adiga wax la timaado program la imaato miiska ku saareen maxaa la imaan kartaa xawla imaan kartaa republicanka adiga hadda wax jiga ma kaysa ma ishii ka qof Soomaali oo laga doortay Mareykanka anu waxaan hayaa 42 qof oo Soomaali ah oo laga doortay gobolada kale oo Mareykanka oo caaw ka haya consul congress county dad badan oo Soomaali oo BCC leh oo ma taqaan ishii successful noqday xisbiga dimuqraadiga waxa laga yaabaa cunugga Soomaaliga caaw inta ku dhashay inuu madaxweyne noqdo waan ognahay hadda waxa jirba cunug Soomaali Yusuf lixsan ka hor asaga oo 12 jira buu ku dhawaaqay inuu madaxweyne yahay wuxuu degan yahay Eden Brady Yusuf marka waxa laga yaabaa hadda hadii uu gaaro dad 35 ah
in uu noqdo madaxweyne Mareykan ama u tartamo laakiin oo markaas waa ololaya dadka maya ma ololani ma fiiri dimuqraadi ما ديمقراطي خدم ديمقراطي وديفرنس معها minority روح تلتيروا معها فيري hadduu iska sharxo laakiin فيري ديمقراطي انا حتى waxyaabo badan waxa jira hadda soo mid ka wada xinkaan waa misaaniga anu ma amisan samaarti ma amisani abortion ma amisan dowladda ma majority ديمقراطي different تلتير baa idinku hadlaysa progressive majority xisbiga centrista ma amisana okay tan kale waxa ku saartay walaala waxa uu leeyahay dadka qaxootiga ah oo Soomaalida Mangalada hal cili uu leeyahay adiga Cabdullaahi see ku tuma America aniga waxaan ku imaaday sheekh waxaan ku imaaday okay ma jeclaa in lagu celiyo America soo lagu ma aniga celis ma mudniba hada kuwan oo kulamid Soomaalida oo yimid waa kulamid aniga wadankooda dagaal ka socda aniga markaan imaado social security LC number bala beed bala meel lagu yaqaano lagu mareelo ma isweydiiso mundada hoosta jifa haduu bari wax ku sameeyo xagee u raacaysa laakiin qof soo tahriib mundada hoosta jifa ma jiro absolutely wow ma la arkay ma had kuwa dooyinka sameysana maxay yihiin ana hata ku keen ma jira qof ajnabi way jiraan laakiin Soomaali ma jiro Soomaaliga ma arkin Soomaali waxa waaye ninkii dhibka soo sameeyo oo qalad soo sameeyo waa kuwa guriga ku qarsanaya horka wadanka fiiri Cabdullaahi waa kuwa guriga ku qarsanaya way Soomaali way qaldan yihiin adkaatayba look wiil haduu soo tahriibo aqraabatiina gurigaaga imaado masaari lahayd ma imaanaya guriga wiil soo tahriib why asaga meeshu dawladdu soo caawimo baan qof bilaadanka soo bilaadanka fiiri aniga qofkaan caawimay marka hore aan sheegay dawladdiin ma ogtahay maxamuud indhaha iska ridna maaha aniga waxaan sheegay marka hore wadankayga uma ogoli qof bilaa sharci ah waxaan ka hadlaynaa Geneva ko fashi wadankan saxay qowlitaanka ani ma caawinayo qof bilaa sharci ah waxaan caawinayaa qofkii legal ku soo galay Geneva Convention wuu jiraa ya in la caawiyo dadka way jirtaa laakiin anigu ma ogoliyaan ku dhahay okay awsalaam aniga iyo madaxweyneyga Trump koogna waa celinayna ورافينا محمود أتكاتي نكمل وركس وعدي وركس وعدي أنا وحباب ملضايسا أنا ورافينا وطورينا داوديال برنامجك أنت كان أكلا عن إيمان دب إيمان إنه هالكسر عاو كوا حكينا إلا دور شرعي سعتان way noo soo socon waxaan ka baqayaa qosolkan inuu ku xigo Torio iyo telefoonada dawmar ma sha Allah ma qosolna wax wada aad ma tantiin ma sha Allah ma sha Allah am kala idinku salaam ila kala ma sha Allah waa soo galnay waa iska daba dhownay daawadayaal barnaamijka intaas iyo ku eegayanta marka la hawada inuu ku kulmayno aniga iyo Saciid Saalax waxaan idin siyaasi fi amaan Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh